kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada jalalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin ka soo baxaya sarkaal la eegta qaraxaasi waxa kale oo daawan doontaan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ayaa cadeeyay mowqifkooda ku aadan in golaha uu sii jiri doono kadib heshiiskii doorashada laga gaaray iyo in kale haddaba xog ku saabsan ayaa daawan doontaan warar hor leh oo sheegaya in golaha ay sii kala dhimanayaan maadaama doorashada la aadayo sidoo kale waxaa daawan doontaan beesha mursade oo markaas jawaab culus ka soo saaray taageerna u diray madaxweyne farmaajo kulankii golaha markaas ama kulankii midowga musharaxiinta waxaa daawan doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin guud ka soo saaray xaaladda guud ee Soomaaliya haddaba goluhu muxuu ka yiri waa in soo gudbi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa iyo wararka ee gobolka geeska iyo arrimaha bariga dhexe fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saarto gambarada cabsata una sharaxayso saaxiibada meel kasta joogaan adigoo markaasi ku mantiga like-na inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulan saacado dheer qaatay ka yeeshay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo mowqifka golahaasi golaha ayaa shaaciyay in golahu uu sii jiri doono kadib markii heshiis doorashada laga gaaray 22 bishan 2020 lagu saxeexay teendhada Arizona ee Muqdisho kaasoo ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka ay ku maamul goboleedyada beesha caalamka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada afayeenka musharaxiinta mucaaradka Sheekh Daahir Maxamuud Geele oo saxaafadda la hadlay ayaa bogay heshiiska la gaaray iyo dadaalkii loo galay in laga hortago inuu dalka galo xaalad kala talis ah muddo kordhin iyo foodo oo musharaxiintu ay qayb ka ahaayeen mar uu ka hadlayay mustaqbalka midowga musharaxiinta wuxuuna cadeeyay in dagaalkii golaha midowga musharaxiintu aanay kula tagaynin aysan ku kala tagin kadib heshiiska doorashada in dagaalkooda halkaas ka sii wadi doonaan ilaa dalka doorashada dalka ay meel mar ay ka noqonayso waa sida uu hadal ku dhigay Sheekh Daahir Geele ayaa u mahadceliyay wasaar Maxamed Xuseen Roble iyo ciidamada qalabka sida ee ka hortagay kaliya-talisnimada dadka Soomaaliyeed wuxuuna cadeeyay inay ballan qaadayaan inay u tanasulayaan danta guud iyo meel marinta heshiiska la gaaray ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka hadalka midowga musharaxiinta mucaaradka ah ayaa ku soo beegmaya iyadoona maalintii Khamiista ahayd heshiis rasmi laga gaaray kulanka doorashada isla markaana ay saxeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo hormuud ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale saaxiibayaal faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa la sheegay in la eegtay wararka laga helayo Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ka dhacay agaarka isgoyska kilomitir 4 ee Muqdisho xalay kaas oo dugta inta badan laga maqlay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka gobolka Banaadir qaraxa oo hamiinada jidka la dhigay meel u dhow barta kontaroolka garoonka diyaaradaha ee kilomitir 4 waxaa la sheegay in la beegsay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska magaciisa lagu sheegay gaashaanle Maxamed Daahir Cabdulle oo ahaa taliyaha askarta ilaalada xarunta dowladda wararkii ugu dambeeyay saaka ayaa sheegaya in qaraxa la beegsay uu ka badbaaday iyadoo ay markaas ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ilaalo u ahayd taliyaha iyadoona midkood la sheegay inuu xaalkiisu liito sarkaalka la beegsaday ee lagu magacaabo Korneel Maxamed Daahir ayaa hore u soo noqday taliyaha saldhigga Hodan iyo qaybta wiliyo cadde ee gobolka Banaadir dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarka qaraxaasi lagu bartilmaameedsaday saraakiisha ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee markaas marayay meelaan ka fogeen isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho qaybihii hore ee janaalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe uga saaro gambaralkana soo shirgaray saaxiibada meel kasta joogaan adigoo markaas ku mantiga like-na inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana beesha mursade ayaa markaas taageero weyn u muujisay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo odayaal saraakiil siyaasiyiin iyo waxgarad ka tirsan beesha mursade ayaa shir ay ku qayasheen magaalada Muqdisho ku taageeray heshiiskii doorasho ee lagu gaaray magaalada Muqdisho kulankan ay soo abaabuleen garabka beesha ee taageersan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo ayaana looga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay
heshiiskii doorashada markii uu arrintan ku wareejinayay wasaare Maxamed Xuseen Rooble. war-saxaafadeedka laga soo saaray kulanka ayaana lagu sheegay inay beesha mursado ay tahay beel jecel nabadda, sharciga iyo dowladnimada oo aysan matelin dadka ka shisheeya dadka sheeganaya burburinta qaranka Soomaaliyeed. ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka beesha mursado garabka taageersan madaxweyne Farmaajo ay ka soo saareen. shirka wuxuu raaligelin ka bixiyay shirkii ka dhacay Tropical Village 22 bishii May 2021 oo la sheegay inuu ahaa shir qaran dumis ah oo lagu abaalmariyay dadkii barkacay dadka maatada ee magaalada Muqdisho. shirka waxaa lagu taageeray heshiiska doorasho ee Avizion 22 May 2021 waxaana loogu mahadceliyay intii ka qayb qaadatay wasaare Rooble, madaxda maamul goboleedyada iyo dhinacyada kale ee markaas shirkaasi goobjoog ka ahaa oo madaxweynaha Farmaajo oo markaas ugu horreeyay in awoodda ciidamada iyo arrimaha doorashooyinka ku wareejiyay Maxamed Xuseen Rooble wasaaraha dalka. markaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii soo dhaweeyay heshiiskii ay Khamiistii gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee dalka ee ku aadanaa doorashooyinka kaas oo laga rajo qabo inuu dalka ka weeciyo qalaasaha siyaasadeed. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku ammaanayeen hogaamiyaasha Soomaalida inay horumariyeen danta xasiloonida ammaanka iyo horumarka dalka iyo danta guud ee shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay sidoo kale soo dhaweeyeen go'aanka ah in la qabto doorashooyin nabad ah, daahfuran, loona dhan yahay, la iskuna halayn karo iyada oo markaas ilaalinayo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30%. xubnaha golaha ammaanka ayaana ku dhiirigeliyay hogaamiyaasha Soomaaliya inay sii wadaan dardargelinta si ay u dhacdo doorashooyin dalka oo loo wada dhan yahay. waxa ay sidoo kale ay ku booriyeen dhammaanba dhinacyada Soomaalida inay sii wadaan wadahadallo furan oo wax ku ool ah si dhibaatooyinka ka dhalan kara heshiiska loogu xalliyo si degdeg ah. waxayna soo dhaweeyeen heshiiska lagu aasaasayo guddiga xalinta khilaafaadka. xubnaha golaha ammaanka ayaa ammaanay taageerada howlgallada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM iyo AMISOM ay siiyaan Soomaaliya, waxayna taageero buuxda u muujiyeen labada howlgal. heshiiska doorashooyinka ayaa dhigaya in dalka doorashooyinka ballaaran iyo mid madaxweyne la qabto 6 maalmood gudahood. waxay ka dhigan tahay 2 bilood ayaana waxaa la iskugu imaan doonaa qabashada doorashooyinka guud ee dalka loo dareerayo, ayadoona si weyn isha loogu hayo tartanka siyaasadeed ee markaas ay sameynayaan mucaaradka ama markaasi dadka u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka. guud ahaan daawadayaal wanaag inta wararka ugu waaweyn Soomaaliya caalamka aad kala socoteen kanaalkeena ka ah wararka fadlan ha hilmaamin inaad subscribe ka saarato gambalkan aad furtaan una sheegaysan saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinkoo markaasi kumentiga laagana inuu reebaya aad baad ugu mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada wararka ugu dambeeya Soomaaliya caalamka. fadlan ha hilmaamin markasta nabadgelyo isha ku haya bugaan.